walaasheenii ikraan tahliil shirqoolkii loo geystay iyo sida loogu been abuurtay maanta waxaan rabnaa inaan ku dul istaagno waxay galabsatay ikraan tahliil baana waxay galabsatay ayaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ummadda soomaaliyeed aan la wadaagno barnaamijka maanta waa talantaali waay anigiyo walaalkay guddoomiyaha guud ee difaaca qaran ayaa insha allahu tacaala si alla kacabsi leh si ummadda soomaaliyeed dad baa waxay dhibaysaa runta maanta waxaan lagu haystaa maxaa ikraan tahliil ay u nooshahay ayaa anagana lagu haystaa ikraan tahliil maxay u nooshahay oo neef ugu jirtaa ayaa dad soomaaliyeed lagu haysto alla dilaa dhinto qofka aan ilaahay dilinna ma dhinto aniga al-shabaab 9 xabood bay igu dhufatay dil bay igu tala gashay allah subxaanahu wa tacaala baa iga soo badbaadiyey sidaas daraaddeed marka waxaan la yaabanahay ikraan tahliil nolosheedii sababta ay u dhibayso in badan oo ka mid ah shacabka soomaalida difaac qaran oo ka bax ku soo noqo guddoomiyaha guud ee difaac qaran ayaa rabaa inaan soo qabto barnaamijka sheergareeya gabadhaan sababta loo dhiibay in la ogaado waa laga maarmaan teleefonkaaga dadab guddoomiyaha guud ee difaac qaran besan u baahana guddoomiyaha guud ee difaac qaran ayaan u baahanahay barnaamijka sheergarey waa asaasi guddoomiyaha guud ee difaaca qaran insha allahu tacaala wadda soomaaliyeeday kiiskan waxaan rabnaa inaan dib ugu laabano waa qiibtii labaad waaya waxaan rabnaa inaan faahfaahin oo bishaali aan ka bixinno oo ilaahay aan ugu dhowaano waxaan rabnaa xogta asaasiga ah dunida daafaheedii baana laga soo wacay falcelin badan baa laga sameeyey dad badan baa la soo wacay bini aadamkana waxaa loo baahan yahay qofka bini aadamka ah waxaa lihi qofka ilaahay yaqaano u dhaaro gabadh inay nooshahay yacni oy nafta ku jirto oo caafimaad qabto ay uur leedahay oo hadduu ilaahay furoy nin bakistaani ah baashi muxuu ahaa bangladesh ah tambirul islaam la yidhaahdo tambirul muhaajir la yidhaahdo in loo guuriyey waa shay waxaa rabaa waxay gabadhan garabsatay sababta al-shabaab ikraan tahliil looga dhiibay baan rabnaa shacabka soomaaliyeed yani inaan dib ugu laaban waxay garabsatay waxaa ka qaadan doona maamo qaran baa ka qaadan doonta barnaamijka oo runtii in badan ay daba socotay kiisas badan baa la xiriira maanta waxaad ma ogtihiin baa rabnaa inaan maanta shaaca ka qaadno waxaa la qariyay in urun baa ku jiro waxaa la qariyey urun baa ku jiro walaalkeeni faadkaasi xaajadaa intana la siiyo barnaamijka uu ka hadlay waxaan maanta ka hadlayno dhamaystirkii boqolkiiba waxaa waaye anagana boqolkiiba hadda inaan ku hadalno go-aankeena maahee boqolkiiba 70 inaan ka hadalno ikraan tahliil arrinteedii laga maarmaan bay noqotay markaan aqbalnay in qarankii loo adeegsaday markaan maqalnay in wakaalada qorar shisheeye cadow dalkan ku ah ay soo qaateen ay ku been abuurteen markaan aragnay ummad fara badan oo kiiskan buubuulinayso dad waxaan ugu kaliftay in jamaahiirta difaaca qaran iyo gurmud qaran ay duurka oo ay haddii ilaahay kuran yahay ay soo qabtaan xogtii u dambaysay gabadha inay soo helaan insha allahu tacaala على قرب القرآن كوين إلى أن أحكام الله يتوشر قريب دمانتي ونقاتي ورد سوماليات إن شاء الله تعالى سؤاله أنك يا سويدين دون لفاقها ضد مهيبة وصوت أولدون أنك نهديني أي برنامج كمحرمنا إلى سؤال سويدين بدأ يسأله شعب سمح والصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الان بنو سلام يا شعب الصوماليين هذا داوانا يكون داون دونو دمان waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh
weli waxaan dhex boqoranaynaa qaybtii labaad kiiska gabadhii walaasheen ahayd qaranka lagu halaakeeyey lagu dhibaateeyey cadowga isticmaaleen gacanta cadowga gashay halkii ay ku dambaysay waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego dadku nin anigiina dadka iska reeb ninkan halkaan fadhiya ismaaciil ah iyo anigaba laba nin waxaan nahay koonfureed ah dagaalkan hadda ay laga soo bilaabo xamar lagu geeyo raaskamboori meel aanan aqoon iyo tuulo aanan aqoon iyo meel aan dad ehela noo degenayn iyo asxaab ma jirto inaa horta la socotaan baa la qabaa midda ayada okay gabadhan mu'aamarad bay ahayd qaranka loo mareegay oo dhibaato ah oo ummadda soomaaliyeed dowladnimadeedii lagu burburinaya hay-addii indhihii ummadda soomaaliyeed ahayd ee sirdoonka qaranka lagu dhibaateynayay ahayd gabadhii marka annaga kiiskeedii mar haddii uu ciriqiina siiyey lan ciriq baa baxay awl ciriqaa maanan hayn gabadhii in xamar lagu dilay in liida lagu dilay in beledweyne la geeyey maano ciriq baa noo baxay faadyaasi waraysigiisii ciriq baa nooga baxay ciriqa baxa waxay tahay gabadhan in mahadkarataa iyo al-shabaab loo geeyey markii waan baaritaan kala aniga gurmad qaran maadaama ninkaana weliba waxaa waay waa iga sii dhow yaho markaad ka soo bilowdo meesha la yihahda baraawa ka bilow ilaa lagu geeyo baydhaba xaggeeda xaggana lagu geeyo raaskamboori jifadiisaa degan reerkaasaa ka dhashay lama taraaco ayaa degan anigana sidoo kale asxaabadan baan ku leeyahay inta tuulo aan sheegayno 70% dabaraa degan inta tuulo ah oo ilaa hawaay ka bilow ilaa iyo meesha la maxay ahayd arabow ilaa iyo dooy oo ku diisoor ku geey ilaa iyo baardheere waa carro waxaa waaye fadhido oo makacdo ah marka markii ciriqaas inoo baxay oo faad yaasiin caddeeyey in xamar gabadha laga saaray ee xaggaas iyo shabeellada iyo jubbada dhex sii aaday markii waan annaga baaritaan galnay bal horta gabadhan xaggay tagtay waa raadinay waa baarnay ilaahay fadligii guddoomiyaha ayaa waxaa la soo hadlay nin oday ah oo aan doonaya magaciisa inaan sheegno oo aan weliba dhihi karo waa nin macquul ah markay bisha dhalanayso bisha soonka marka laga baxayo oo ciidda la gaari qofka bisha arko waa la dhaariyaa weliba waa dhaariyay ninkan idimuu sheegay isaga wuu dhaariyey annaga waa ku celinay ma dhaarisaan ku yidhi waa dhaariyay ninka isaga wuxuu caddeeyey in gabadhaasi ay joogto deegaanka hawaii uurna ay leedahay la geeyey meesha la yidhaahdo maxay ahayto arbay cabdi la geeyey meesha la yidhaahdo turdho oo waddada bardunaalka la marsiiyey oo la geeyey naftaaquur intaas saldhigyada al-shabaab lasoo marsiiyey dood adagna ay ka dhalatay gabadha xaaladeed dood adag baa ka dhalatay xasaasi quburaa loo fariisiiyey oo ay nimankan ku tilmaamaan majmac wax la yidhaahdo oo ay dhahaan maxay ahayto shuuro ah baa loo fariisiyey gabadha waxaan rabaa inaan idin sheego al-shabaab saa u taqaaninba waxaa guddoomiye hadda waa nin u dhashay meesha gaaljacaal oo gabadha adeer u ah raggii waaweynaa al-shabaab sheekh xasan yacquub cali fiidow hebel adigu noocaasa waa la fariistay gabadhii waa la keenay waad karatay marka qorshaha waxay gabadhi inuu qoodooy aansada markii oo ay shakada saa ku dhamaan maadaama lacag ku qaatay oo hawshaan fududaynay qaatay oo ah markii qofka cadowga ah ee gaalada la socda shabaabku waxay noo yaqaanaan annaga cadow kulligan cadow waa nahay dad caadiya nooma qabaan dad gaala aynu noo qaaban inay xawlahan nafteenna iyo maalkeennaba xalaal yihiin bikulli ixtiraam barnaamijkan sheergareey waa daawada ummadda soomaaliyeed sheergareen al-shabaab marka labadan annaga waxay noo yaqaanaan inaan nahay dad gaala ah nafteenna iyo cirdigeenna iyo maalkeenna waa u bannaayin okay waa la fariistay arrintii waa ka fariisteen maalin kale ay fadhiyeen waxaa la soo saaray doodda waxay ahayd gabadhan ma isdaafinaa oo ma dilnaa mise waxaan ka samaynaa adigu waxaa la isku raacay majoritigoodii ah maadaama ay gabadhaan tahay gabar gaalada u shaqaynaysay addoomay lasoo qabsaday in la xoreeyo ilaahooda amar la amuro weynta in la xoreeyo gabadhan see lagu xoreeyayaa hooy waa in mujaahid ah gabadhan la siiyo oo asaga xoreeyo jihaadkaa lagu soo qabto baa la leeyahy waa waxyaalaha ay cuskanayaan adu gabadhii nin hadda aan xidid nahay oo aan ilmana u wadno oo la yidhaahdo tanbiir almujaahid alislaam bay dhahaan magaciisa waa nin magaan dhiishan waa gaaban gaari gududan oo saarifoo wataasee noo sheegeen ninkaasaa gabadhii xorey layidho oo la siiyey waxaan rabnaa marka gabadhii halkaasay ku sugan tahay xaaladeedu caafimaad xoogaa yar bay xanuunsatay waa lasoo daawi waa tahay idin sheegnay marka waxaan rabaa bal guddoomiyaha inaan siiyo annagu waxaan ka hadlayna waa daawo tan kalene inta ragil ani maadaama aan reer bulaxaawana ahay oo mandheera iyo xaduudan aan deganahay nafteyda waxa waaye maamadii baa lagu maqan yahay maamadii
baa laygu maqan yahay wajeer tuula agteeda ay aadaa lagu yiri maamadii muumina laygu maqan yahay ها يا اللي يقوم مقيا مركي أن صاحي الله محمد وسواد الشيء قبل هذا الشيء هو لقى قاضي كسر قدومي إن قدومي عادي أقول بالفضل أكبر مكملة وحيوم اللي يجمع وهذا إنه إن يجين واحد كحالنا أما في يوسفانس تتبع ملايو لكن شعب معروف بيجينا وهذا إنه ما يلفظ من قول لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا شعب الصومالي إلا اسمه قال الله هذين رسوا حطان آبه هدو يرسوها آبه هدو يرسوها وعن دعاء قالني إن القعر من الطيرة تاريخ فارع بعضهاي أنا كان قالب قهد وحكم أمينين قالب قهد وما أنت قالب قهد وأنكو أمينين إلهي قلتي أبوري الدنيا خرب بلا قبلنا الأبوض بيهي سلعي سعيد وحكو سوكرتم إلى سلوكوريسي إذا عمدوا بيهي إذا عمدوا أبو أيك يحي ما أنت هنا اللي يطبط الكيسان assassination iyo diibitaanka gabadhan inay qaali guhaan ay shaar weyn ay ku qaadatay qaali guhaan inay shaar weyn ay ku qaadatay asbaabta marka keentay waay gabadhan loo assassination gareeyey loo dhibaateeyey loogu dhiibay al-shabaab maxay galabsatay gaartahay barnaamijka dib lagu laabanay okay gabadhan waagi hore waxaa xogaan u ahayd xafiiska سبلو شجوع جد خلاص ما حبناش أصوبه وده الإنجليز كموقع هذا أصيب صوبرتي وحي اللودري واحد يحب يصوبرتي إني أرمى السردون كصوبرته أي اللودري ده بدي أرمي ويكون كان ده مرة مقرابة يطردمي يرحمني أبترمي من شنو مكاني حبيسكي ممكن ماشي ده أرمي السردون كي ويكون كان يقبضي لهجتي لغتي يوعي يقالدي الدمغلاء هو ما من الدكسلية حروفها على الدكسل وقبل الكورونا شيء والبوع عليها عفماتكم وعليها اليوم وقتها القريب terminology أي عليها سياسة ديري وقتها يعني حروف وقتها ممكن تبقى عندي واحد طلبنا مدام نشر مين تكي وحكومات فرصنا انتي ماشي اسبدل كي ماشي كان داعي قبل اسبدل كي ماشي انتو داعي ودولا يسبب الشركة العقادي ووقتي قلب نقع على مسافرين بيه جرجاجوس كي ويناي عادي وقود الصوماليين لها التكريك لها ذلك عندي منطقة فرمضان على مرسية ودرين كرتان جاجوس كي قلب نقع لها وقتي لما مسافرين وحي كتب بينك هلكي وانا قاعد هلكي وعلى مقعابين اللي يراد الرسال او موسلي يراد سال اسمان أو القوس القرابة الله يخلص منها وقتي أنا عادة نريد كله وقتي أسقط وين مدري كذب سيكم القارة وحبيكي هاي هذه السين بعدي ما كنت بمشي أبوست لما يكون يعطيني الكوراي هاي فاهم هيك الكوريجي قبل ده ما كان الصور لا بدي وفاهم هيك قبل ده وهيكون أولاد دقالين جري عفيس كيف على قد دقالين جري وبعد يتحمل لا شقين جدا مرحوم كده انت انجينير يوسف ما لا شقين جدا كمان هل من كان مخابرات كعالم قوة الصوماليين يبقى ايضا اسبرتين مرقى اسبرتين كم بعد كمان ولا لو عرور بيهاي مسكينة شقدونة بيهاي قوانان وهاي فوضيستي قوانان إلهي عافيو assassination في الود دي انجينير يوسف أي واحد فوضيستي قط اللي يرادو يعني كان تهدي وجد كان إلي مسكين كان تشمي سنين وحالي قوانان ولاشا أو النوشا هل كاسا شغل قسيي دمانا أليك دمين كانوا غالي كون دمين كانوا غالي مالك الدم ما كان ندش غيسي قوانان النوشا هاي وعامد عليه قوانان دي قرح المصر oo adduunyada ay dhacdo jinnaar rabaa inay tiira oo ay qaraabada haye jinnaas ay jinnada soo baaqshay waxa wala soo way qaatay hormuud way ka waraysaa iqaan cidii dishay iyo qaab waxa u dhacay way ogyihiin laakiin waa lagu dhigay wax weeyaan way la wixii waa isla
dadkayga ahay uu ka dhashay jiradiriisow iyo ummaddan dhexdooda dagaal baa ka jira sidaas daraaddeed hormuud waxay ku qasbanaatay inay arrintan ay daboosho ayadoo og tahay ayadoo la socoto wax walba oo dalka ka dhaco qaarkii haddaba barnaamijka sheekada waa xasaasi waaye mar labaad inta saddexaad baan isugu imaan doona oo waxay aadi doona barnaamijyada kulliga tbd bay wada aadi doonaa gurmud qaran iyo maxamed cali gurmud qaran miiday maxamed cali bay subscribe saa dhammaantii regiska iyo tbda ku leedahay okay haddaba gadoomiye wax yar gabadhii waxay fududaysay baabuurkii qaraxa maalinkan isagaa gabadhaas fududaysay waxaa damiinka ahaa oo soo fudaamiyey oo damaanad qaaday maasalaad baa la yidhi yaa la baari gabadha indho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وحان سوق البناي إن أرنتان إكران تهليل إلهي يحفظي وحال لي هاي ونوش هاي انت أردتس كدب أرضي قبق على وجري مرك على اتحال انت وهاي هيد ما لنتي يعني إلهي سو سهلي بريها دون social media dhex wareegaysa warkaas waa wareegayay marka hadda ninka hadlaaya wiilasha hadlaaya midna waxaa la dhahaa Ismaaciil Boolyo oo kasoo jeeda Diinsoor Baay iyo Bool ninka kalena wuxuu dhahay Badaxa waa kasoo jeedaa marka waa wiilal Soomaaliyeed kuley been kuma baranin marka run Allah ka dhigan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabey Soomaali weynay waa idin salaamo dhammaantiin